أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ku soo jirnay falaa'il الqur'aan, qur-aanka falaa'ishiisa axaadiisi ku soo aroortay ayaynu ku soo dhex jirnay oo dhowr qaybood aynu ka soo warannay. meeshaan waxaynu ka gelaynaa faatixatu lkitaab ayaynu meeshaan ka gelaynaa suuratu lfaatixa. suuratu lfaatixa waa suuraddii ugu horeysay qur-aanka ugu horeysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku furfurtay weye. suuratu lfaatixati, faatixadii suuraddii lagu magacaabay makiyatun markay kusoo degtay. wa aayaatuhaa aayadaheeduna 7 aayaatin aayadayaalo oo 7 weeye. waxay noqonaysaa kelimaadkeeduna 25 kelimo weeye. xuruufteeduna 113 xaraf weeye suuradda tan. waxaynu meeshaan ka gelaynaa suuratu lfaatixa ayaynu ka gelaynaa. suuraddan ayadoo macnaheedu ay noo dambay doonaan oo darsigeennan midka ku xiga uu noqon doono. waxaa weeye suuraddan marka ugu horeysa waxaa la yidhahdaa suuratu lfaatixa waa suurad oo makiya weeye. akharu culamaa'i sidaas ayay qabaan. waxaa kaloo jira dad yidhaahdeen suuraddan waa madani. labadaas qowl dad jamciya waa jiraan oo yidhaahdeen waxaa weeye 2 mar ayay soo degtay. mar waxay ku soo degtay markay ku soo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiinay ku soo degtay markii qiblada la soo wareejiyey oo waxa weeye xiina xuwilat alqiblatu, qiblada markii la wareejiyey ayaan dhihi lahay na waxa weeye madiinay ku soo degtay yaa la yidhi. taasna waxaa caddaynaya ay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabay suuraddatan masaaniya lagu magacaabay. ilaahay waa si uu yidhi walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiim. ilaahay uu yidhi nebi maxamedow waxaanu ku siinay 7 oo la soo celcelinaayo iyo qur'aankii weynaay ayaanu ku siinay. marka masaanidaasu macnaha sidaas hadda la leeyahay looma badna. haddii ilaahay yidhaahdo waynu ku tegaynaa aayaddaas oo insha allahu tacaala suuratu lxijr ayaan ugu tegi doonaa. masaanidan waxa weeye ragcad kasta ayaa faatixada lagu soo celceliyaa, sidaas ayaana masaani loogu magacaabay. sida raajixaana sidaas weeye. laakiin culummada tandhahaaya 2 jeer ayay soo degtay oo marna markay ku soo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiinay ku soo degtay markii qiblada la wareejiyey. ayaa waxay yidhaahdeen masaani sidaasaa loogu magacaabay oo markaasi waxa weeye laba jaas jeeray soo degtay saasay yidhaahdeen. qaar waxay yidhaahdeen nis maka ayuu ku soo degay, nisna madiina ku soo degay ee ma ahan in markaasi 2 jeer ay soo degtay. nis ayaa wuxuu ku soo degay maka ku soo degay, nisna madiina ku soo degay. laakiin wararkaas markii laysku soo duuduubo sida raajix ahoo saxiixahu waxa weeye inay maka ay ku soo degtay. waxaana u daliila ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiima laftirkeeda ayaa daliil waxay u tahay faatixa inay kusoo degto maka ay kusoo degto oo ilaahay xaramkiisa ay kusoo degto. maxaa yeelay waxaa la leeyahay suuraddatan oo suuratu lxijri ah maki weeye. waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waa suurad makiya, ijmaac ayaana lagu yahay. mar haddii suuraddaanu ay maki tahay ijmaacna lagu yahay, ilaahayna uu yihi walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiim, waxaa meeshaas ka caddaanaya suuratu lfaatixa inay maka ay kusoo degtay. waxaa kaloo la leeyahay salaada waxaa la faral yeelay isagoo rasuulkeena calayhi salatu wasalaam maka uu joogo. maxaa yeele nabiga markii calayhi salatu wasalaam la dheelmiyey maka ayuu joogay, markaas ayaa salaada lagu soo faral yeelay isaga iyo ummaddiisa. waxaana la leeyahay ma dhicin islaamka dhexdiisa salaad oo waxa weeye faatixada waxaan ahayn lagu dukaday ma dhicin baa layidhi.
محايا هدي ليلاد سورة تنو وهي كسو دكت مدينة صلاة مرك النبي عليه الصلاة والسلام ما كملك جوهي لفلا ليالي وحاوركا سكينة يا إن مركاسي صلاة اللي قدو كذي وحان فاتحة هين هدي ليلاد مدينة كسو دكت مرك مدينة كسو دكت تاسو حاوية ضعيفة يقول سنتهي لكن بعض العلماء نوي قبان وهذا الدليل إن مركاسي فاتحة كسو دكتي مكة كسو دكتي إسلام كان وحاوية أي سنبع صلاة للدكدي أو اللي الدكدي وحان فاتحة هين رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وصحيح البخاري قد قايا وحاوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والرسول صلاة مجرت أو أنصحيسة إلا فاتحة الكتاب إلا لي ما دموي مركب فاتحة وحي كمتهي أوائل في القرآن كأي كمتهي أوري أي كمتهي حق سورة دقيتان مركب هذا سورة وحال لغو مقعابي فاتحة يا لغو مقعابي سورة الفاتحة ومركب أبو رئيسة تسمية أو لغو مقعابي وحال لغو مقعابي ليدي لأنها مفتاح الكتاب العزيز إلهي الكتاب جيس عزيز كفروه سويه معايا لو حي فروه سويه waxay ku tahay quraanka bilowgiisa weeye marka magacaas waxa uu kamid yahay 20 magac oo suurada tana iska leedahay marka asaga ayaa wuxuu yahay magaca ugu horeeyo oo mashhuurka ayaa waxa uu yahay Faatiha suuratul Faatiha intaas leeyahay hadii marka 20 kaas hadii aynu ka qaadanayo suuratul Faatiha leeyri 20 kaas magac oo suuradaanu ay leedahay hadii aynu soo qaadano waxa lagu magacaabaa suuradatan فاتحة الكتاب يا ليلى كتاب كثير لغفرت يا ليلى سورة الفاتحة ومقع كوبا مقع على واحد وحوي فاتحة الكتاب مقع سد حديثها ليلى ذا أم القرآن يا ليلى قرآن كهو يديس يا ليلى وأصل القرآن وي معايا ولا قرآن كأيال لغب اللوضة مرة دي قرآن كفاتحة لغب اللوضة فاتحة السورة وحي كتاي أم القرآن يساس كتاي marka mar hadii lagu bilaabanayo fakaanaha aslu wa asaasu waxay ka dhignaatay ayadoo quraanka asalwa oo asaas ah weey magaca afraad waxa la yiraahdaa suuratul kanzi ayaa la yiraahdaa kaydka suuradiisa faatixada waxa la yiraahdaa suuratul kanzi لانها نزلت من كنز تحت العرش maxayela waxay ka soo degtay baa la yiri kayd oo carshiga ilaahay hoostiisa kanzi ah oo kunuusta ilaahay kamida ayaa faatixada laga soo qaaday saasa marka waxa loogu magacaabaa leeyahay suuratul kanzi ayaa loogu magacaabay magaca shanaad waxa la yiraahdaa al-kaafiya ayaa la yiraahdaa al-kaafiya ayaa la yiraahdaa maxaa yeelay qofka suurada faatixada akhriya waxay ka kaafinaysaa gaar ahaan salaada suuradaha kale intood ay ka kaafinaysaa waxa la yiraahdaa al-waafiya ayaa la yiraahdaa maxaa yeelay waafiya weeye kaafiya weeye salaada sixadeeda ayaga ayaa markaas waafiye ah oo markaas waxa weeye ayaga ayaa ku filan ayaga ayaa kaafisa salaada weeye an qeyriha weeye inda alqudrati markii qofku uu awoodo inuu faatixada akhriyo wax kale markaas waxa weeye quraana ama adkaar kale ah oo u baahan yahay ma jirto oo ayaga ayaa markaas ku filan magaca toddobaad hadii aynu soo qaadano faatixada waxa la yiraahdaa ash-shaafiya ayaa la yiraahdaa waa tii shaafinaysay maxaa yeelay suurada tano waa shaafiye weeye amraasha oo xisiga iyo kuwa macnawiga ayay shaafinaysaa magaca sideedaad ash-shifaa ayaa la yiraahdaa ash-shifaa ayaa la yiraahdaa tii daawada heeday maxaa yeelay xadiis ayaa wuxuu ahay nabigeenu inuu yiri calayhi salaatu wasalaam hiya shifaa'un min kulli daa'in oo dhahay faatixadu waxay daawo ay ka tahay cudur kastay daawo waxaa la rabaa quraanka ilaahay markuu daawada noqonayo iyo adkaarta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku waxa weeye inuu caqiido fiican uu leeyahay اعتقاد wanaagsan uu leeyahay tawakkal ilaahay uu kala saarto uu leeyahay iimaankiisu uu kaamil yahay ayaa loo baahan yahay ee qofku asagoon i'tiqaad wanaagsan quraanka ilaahay ka qabin tawakkal ilaahay aanan qabin quraanka aan rumaysnaynin oo aan quraanku la weynayn inuu ku caafimaado markaasi ma sahlanaahiis magaca sagaalaad waxaa la yiraahdaa as-sab'u al-mathani ayaa la yiraahdaa todobadii la soo celcelinayay waxaa loogu magacaabaa as-sab'u al-mathani لأنها 7 آيات على الصحيح سواء قلنا إن البسملة منها أولى سوى صحيحة
سورة تنوحوية وتوضع آيات هذه أن نحن بسملة وكمد إن شاء الله تعالى خلاف كاسوان تيدونا بسملة كمد ويا أما كمد معنا دان نحن لا واحد دان نحن سورة تنوحوية وتوضع آيات مجا كبرات وحال إلى النور أيال لها سورة النور كهذه سورة النور وي هاي القرآن كإلهي يا نور وي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كنور أيوه وكتل المعنى مركا قرآن كعوية ونور رسولك عليه الصلاة والسلام ونور إيمانك ونور وهكذا كو يتغن لهذا الرقية أيال لها سورة الرقية أيال لها تفضل السورة دي هاي السورة دي ولا يسكتفا إلا يسكتفا أحاديث صحيح البخاري يسوى رورتي نينك مركا هي سحادقة هاي واتي مركاسي قالادي نينكي كجرهي او كتفي فوالي فاتح ايه لقاء في ارقى ايتقاتين وكتب دونادي الهيدا سورة مركا وحاوية الرقي ايا ليلاهو وحاوية والغطفة يا قفكي وحاوية جرهن والغطفة يا لما يتباناد وحالي لا مقع لما يتباناد سورة الحمد بالله والشكر سورة حمد هي شكر ايا ليلاها معايا الحمد اي مارت يا سورة تنو اي كب اللعبان يسا شكر إلهي سبحانه وتعالى نعملي سلو شكر يا خصوصا وعلى إله مقع سدح يكبنا سورة دان الدعاء يا ليله واتي الدعاء هذا معايا لسورة دانو وحوية وسدح قيبوت قيبت مركز سواه كتبيناه او سدحات وهي كبد العبانة يساوي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل كعطي كبد العبانة مركز ما دام الدعاء سوء كجرته سورة دان وحالة الدعاء يا ليلة دعوه فاتحة ما عفر يطبنا بحالة تعليم المسألة وهو المسألة السؤال شو الله يسكت تعليم يا ليلة وحال وضعها ينه لاشتمالها على ذلك هو مسألة تعليم هذا أي مركز في قفك بريسة معايا رسولته إلهي السنهيسة إيا حمدي أي كب العبانيسة كبعد أيها وحا إيمانية إن إلهي وحل السؤال في سورة آخر كذا وأنا دعاء المستجابة أي كتاي إن مركاسي سنها الله يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لهور مريو سيدة حديثة صحيحة سؤال والدعاء الله قبل الله الحمد لله والثناء لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبعد مركز قفك وحوضونا إليه ويديس لكن هديئة اللهم ربنا هريئة كلا بودي تاسوحة دعاء إجابة ليدي إنه اللي مسألة بأثريس ماذا عشان يتبنات ده ليرا سورة المناجات يا ليرا لفقدها أما لشوردها سورة دي قفك وحاول مركز سورة دان أخينا أيو إلهي مناجات كيس أيوك سوينها الله أيو لفق يا سبحانه وتعالى وإلهي علم جيسة أيو قفك أجيه وكل صعدا معايا لمركز الله ده إياك نعبد وإياك نستعين إلهي يو أديك أيانك عابدينا أديك أيانك كاكا المضلبينا إياك نخص بالعبادة معناها إن شاء الله تعالى ونوضع ومرياني وحوية ومناجاتك إلهي بأسو جفتا طبق هذا سبحانه وتعالى أياد لفق يسوي أدلك وديسا ماذا اللي هي توانا بيها ليرا سورة التفويل أيا ليرا بندقيد سورة دي أيا ليرا معي لقف كان سورة كان أخينا أيه الله سبحانه وتعالى أيا أموريس أو بندقنا إلهي سبحانه وتعالى أيو أمورتيس أو بندقنا مركز سورة وحالو مقعابه كالانتود سورة التفويل أيا ليلة مقع كذا ويطبنات وعليها سورة السؤال أيا ليلة سؤال شو سورة دي معايا سورة كان انت الأخير نيسو الله أيا وح سؤال نيسا اهدنا الصراط المستقيم هذا إله طريقة توصل نوهنوني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب تاسو مركو عوية والسؤال وي إلهي باد وحوي دي سنيسا سؤال مركو حالو مقعابا وأسماء دي كملة لواتنك سورة السؤال إلا يدعي مقع سجيري طبنات وحالو مقعابا سورة أم الكتاب على مقعابا كتابك أسلكيس أما كتابك وهيديس معايا لكتابك أيضا أيها أسلوه أيضا أيها لغب اللوضي أيضا قرآنك لغب اللوضي معاني ذي أيها عجيبة معاني ذا قرآن كوردن علماء الإسلام كوحي لهذين فاتحة أيها كجرتا قرآنك معاني ذي سوردن قفك إلهي فهم وقصيه وها كجرا فاتحة أيها كجرا سرت قرآن كدمانتي سورة الفاتحة كجرتها لي سورة الفاتحة مركب واسواد عجيب وي مقع السقالية طبانات وها ليرا فاتحة القرآن قرآنك مد فرطيب عليها على هذا قرآنك
markii la bilaabayo hagee laga bilaabaya faatixada ayaa laga bilaabaya ayada laga bilaabaya saasaa lagu soo yeedaya sida hadda waxa weeye cabshirkeenan oo markaasi tafsiirka uu ku soconayo waxa weeye faatixada ayuu saas uga bilaabanaya wahaakada suuratu lbaqara halkaasaanu ku wadaynaa haddii ilahay yidhaahdo ilaa suuratu birabbinaas aynu ka gaarayno qof kasta oo markaasi waxa weeye la socda tafsiirka sidaas ayuu ogaanayaa in markaasi qur-aanku halkaan uu ka bilaabanayo isla markaasina waxa weeye uu soconayo ilaa laga gaaro suuratu birabbinaas laga gaarayo magaca labaatanaad assalaad ayaa la yidhaha faatixada waxaa lagu magacaabaa assalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaanu marka maxay tahay waxa weeye xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegaya suuraddan waxaa lagu magacaaba markaasi assalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaa lagu magacaabaa waxaana salaad loogu magacaabaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qasamtu salaata u dhahay faatixadii ayaan qaybiyey oo asalaada lagu sheegayo faatixada laga wadaa salaada hadda waxa loogu magacaabay yidhahdeen culummadu salaada ayay markaasi rugni kamida ay tahay oo haddana mar walba lagu soo celcelinayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay xadiidkan markaasi waxa weeye waa xadiisulqudsi alla ayaa waxa uu yidhi qasamtu salaata faatixadii ayaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayni aniga iyo addoonkayga ayaa waxaan ugu qaybiyey faatixaduu dhahay ilaahay laba nis qasamtu salaata faatixada ayaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii aniga beynkayga iyo addoonkayga nisfayni laba nis fa nisfuhaa lii nis oo faatixada aniga ayaa iskale oo waxaa laga wadaa aniga ayaa laygu faalinaya laygu tilmaamaya wa nisfuhaa licabdii nisna addoonkayga ay u sugnaaday walicabdii maa sa'ala ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkaygu wixii ou su-aasho ayuu iska leeyahay waana sidaasan alla wuxuu dhahay xadiisulqudsigaas yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaha gadaalaan ka sheegaynaa yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdii markuu addoonku uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu llaahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa i ammaanay addoonkaygu waa igu xamdiyey yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay dhahay alla subxaanahu wa tacaala arraxmaani araxiim ayuu dhahaya yaquulu rabbu rabbigu wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdii addoonkaygu waa ifaaleeyey aad yo aad sifo aan laayiq u ahay ayaa addoonkaygu ugu faaleeyey yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay maaliki yowmi ddiin yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay markii uu yidhi maaliki yowmi ddiin ou dhahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay oo waxaan ahay ayuu ugu tilmaamay yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay u dhahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yaquulu llaahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay haadihi alaaya aayadatan oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ah beynii wa beyna cabdii aniga iyo addoonkayga inoo dhexaysaa walicabdii maa sa'ala addoonkaygu waxuu su-aashay ayuu leeyahay marka hadda meeshaas markii aad soo gaarto waxaa imaanaysa su-aasha ayaaba ku xigaysa su-aasha markaasi addoonku ilaahay uu weydiisanayana qaybta ducada ah oo faatixada ugu dambaysa weeye yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ayuu leeyahay yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay haaulaa'i licabdii kelimaadkaas ducada addoonkaygaa iskale walicabdii maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wixii ou su-aasha ayuu iska leeyahay haaulaa'i licabdii kelimaadkaas alla ayay u sugnaadeen walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wixii ou su-aasho ayaa uu iska leeyahay sidaas ayuu maaragtay yaa leeyahay walicabdii maa sa'ala suuraddatan hadda marka waxaa weeye faatixadii sidaas ayaa markaasi waxaa weeye ay u cajiib badan tahay marka hadda suuraddatan suuratu lfaatixa ayaa la yidhaha suuratu lfaatixa markii la yidhaahdo waxaa ku soo arooray fadligeeda axaadiis aad iyo aad u tiro badan ayaa kusoo arooray axaadiistaasoo waxaa weeye aan la soo koobi karin ayaa ku soo arooray marka axaadiista waxaa ka mid ah aynu hadda meeshaan kusoo qaadanayno oo markaasi axaadiista waaweyn qaarkood ay dhigaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa rasuulkeena wuxuu dhahay allah wuxuu yidhi malagga la yidhaha israafiil ayuu wuxuu dhahay yaa israafiil bicizatii wa jalaalii wa juudii wa karamii waxaan ku dhaartay cizadayda
iyo jalaalkayga iyo juudkayga ayaan ku dhaartay deeqtinimadeyda iyo karabkayga waa isku macno dhow yihiin taas man qara'a bismi illaahi araxmaani araxiim qofkii akriya bismi illahi araxmaan raxiim maratan marado bifaatixati alkitaab na ku akriya maratan waaxidatan oo ila yidhahda bismi illaahi araxmaan araxiim faatixada akriya ushhuduu ka markhaati kaca haddaad malaa'ig tihiin annii kafartu lahu inaan u dhaafay dembigiisii wa qabiltu minhu alxasanaat xasanooyinkana aan ka aqbalay wa tajaawastu canhu sayi-aat xumaanyaalkana aan ka dhaafay walaa uxariqu lisaanahu fi naar lisaankiisana naar ku gubi maayo faatixada idoo la akriyo basmalada lagu akriyo waxaa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xadiisulqudsigaas uu ku dhahay wa ujiiruhu min cadaabi alqabri waxaan ka korinaa u dhahay allah haddana subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsigaas addoonkaas cadaabulqabriga ayaan ka korinayaa wa cadaabi naar naarta cadaabkeeda ayaan ka korinayaa waalfazaci alakbar argagaxa weyn oo maalinta qiyaamo dhacaayane waan ka korinayaa wayalaqaanii qabla alambiyaai walawliyaai ajmaciina waxauna ila kulmaayaa ambiyada iyo owliyada hortooda ila kulmaaya hadda markaasi kulankaanu kulan khaasa weeye ambiyada ilaahay wax laga hormarinaayo ma jiraan marka hadda waxaa weeye liqo oo markaasi khaasa ayaa loola jeedaa waxaa weeye waxaa dhigaayo maaragtay jaamicu sagiirka kitaabka la yidhaahdo ayaa dhigaayo xadiisaa soo qaatay isagoo meelo waaweyn oo muhiima ka soo qaatay haddii marka hadda waxaa weeye aynu haddana wax ka sii qaadano amaana maaragtay wax ka sheegno waxaa weeye axaadiista oo ku soo arooray suuraddatan markaasi fallaa-isha ay iska leedahay waxaynu ka soo qaadanaynaa xadiis oo markaasi waxaa weeye oo saxiixa ayaynu soo qaadanaynaa oo markaasi waxaa weeye uu iska leeyahay saxiixulbukhaariga aynu ka soo qaadanayno marka hadda waxaa weeye axaadiistaasu waxaa weeye hadda aynu soo qaadanayno ma ahan intaas kaliya inay axaadiistu ay tahay laakiin saan hore idinkuu sheegnay faatixada waxaa weeye fallaa-isheeda wax lasoo koobi kara ma aha maxaa yeele haddii la yidhi qur-aankii macaanidiisii oo dhan ayaa suuraddatan ku jirta sirti qur-aanka oo dhan ayaa maaragtay suuraddan ku jirta haddii la yidhi waa arrin aad iyo aad u cajiiba marka waxaynu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey saxaabiga la yidhaha abi saciid ibnu lmucalla radia allahu canhu waxa uu dhahay saxaabigaasu kuntu usallii waxaan ahay mid dukanaaye maalin baan dukanaaye dhahay fadacaanii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam markii aan dukanaaye ilaahay rasuulkiisaa ii yeerow dhahay falam ajibhu ma ajiibin markaas salaad baan ilaan ku jiraye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu ii yeeray ma ana ajiibine salaadeydaan iska sii watow dhahay xataa sallaytu intii aan ka dukado oo salaadeyda aan ka dhammaysto salaaddii markaan dhammaystay fa ataytuhu rasuulka waanu imidow dhahay salaaddii markaan ka baxay isla markaasina rasuulka calayhi salatu wasalaam yeeristiisa aan maqlaayey waan soo baxay rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaan soo ag fadhiisow dhahay faqaala markaas nabigu waxau dhahay maa manacak maxaa kaa reebay an ta'tiinii inaad ii timaado abi saciidow markaan kuu yeeray maxaa dhacayood iigu imaaweysay ayaa nabigu calayhi salatu wasalaam idhahayow dhahay marka abi saciid waxau dhahay faqultu waxaan dhahayou dhahay yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow kuntu usallii waxaan ahay inaan dukanaayo salaad baan ku jiray rasuul allow sidaas ayaan waxaa weeye aanan kuugu imaanin qaala markaas nabigu waxau dhahayou dhahay alam yaqul illaahu tacaala sow ilaahay ma dhihin istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum sow ilaahay qur-aanku ma dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum weeye dadka mu'miniinta ahow ilaahay ajiiba rasuulkana ajiiba markii waxaa weeye uu idiin yeero limaa yuxyiikum wax idin noolaynaayo rasuulka calayhi salatu wasalaam qofka u yeero wax noolayhaaya oo naftiisa anfacaaya ayuu ugu yeerayaa suma qaala markaas wuxuu dhahay markii rasuulka calayhi salatu wasalaam saas ou dhahay la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan ilaah baan ku dhaartaye waxaan ku barayaa suurad midda ugu weyn oo qur-aanka ku jirta ayaan ku barayaa qabla an takhruja min almasjid masjidka intaadan ka bixin ka hor ayaan suuradda qur-aanka ugu weyn ayaan ku barayaa wala fiirso faatixada qiimada iyo cadamada ilahay agtiisa ay ku leedahay rasuulkeenna wuxuu ku dhahay saxaabigaas la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan waxaan ku barayaa suurad midda u weyn oo qur-aanka ku jirta qabla an takhruja min almasjid intaadan masjidka ka bixin ka hor qaala markaas wuxuu dhahayuu yidhi qaala markaas waxau dhahayuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha abi saciid fa akhada biyadii rasuulku calayhi salatu wasalaam gacantaydu qabtay markii uu yidhi la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aani ayaa waxa weeye
gacanta ayuu qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam si waxa weeye arrintaas oona igaga halmaamin falamaa aradnaa markaan doonow dhahay an nakhruja min almasjid ow falamaa araada markuu doona rasuulku calayhi salaatu wasalaam an yakhruja min almasjidi masjidka inuu ka baxo waxa weeye meeshuu gacanta iga soo qabanayay masjidka dhexdiisa ahayd waa la socday isagoo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam abi saciid gacanta ka haaya markaasay waxay gaareen iridii masjidkay gaareen abi saciid waxau dhahay markii nabigu ou damcay inuu masjidka ka baxo qultu waxaan dhahay yuu yidhi yaa rasuula allah ilahi rasuulkiisiiyow qulta waxaad i dhahday la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aani ilaahaan ku dhaartaye waxaan ku barayaa suurad midda u weyn oo qur-aanka ku jirta qaala markaas wuxuu dhahay nacam haa alla ilaah waa ku barayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina ayuu dhahay waxa weeye suuraddaas qur-aanka u weyn waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuratu alfaatixa weeye hiya sabcu lmasaani waalqur'aan alcadiim aladii uutiitu ayuu dhahay waxa weeye faatixadu hadda waxa weeye rasuulku waxau dhahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asmaadii hadda aynu soo sheegaynay waxaa ka mid aheeday suuratu alxamdi washukr oo hadda waxa weeye alxamdu waxay ka mid tahay asmaadeeda maxaa yeele hadda carruurta dugsiyada qur-aanka dhigaysa markii aad su-aasho oo xageed ku jirtaa tirahayd kii faatixada markaas ku jira wuxuu ku leeyahay alxamdu ayaan ku jiraa waxa weeye isin oo asmaadeeda kamida weeye maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu dhahay suuraddaas qur-aanka u weynu waxa weeye hiya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmasaani waa todobadii lasoo celcelinaayow dhahay waalqur'aan alcadiim qur-aanki weynaay weeye alladii kaasoo uutiituu laysiiyey oo ilaahay yidhi subxaanahu watacaala walaqad aataynaaka sabcan min almasaani waalqur'aan alcadiim waanu ku siinay nabi maxamedow todobo oo markaasi waxa weeye lasoo celcelinaayo ragco walba lagu soo celinaayo iyo qur-aankii weynaay ayaanu ku siina u dhahay ilahi subxana wa tacaala ilaahay cadamo ayuu ku tilmaamay culammada islaamka waxay isku waafaqsan yihiin shaygii ilaahay weyne uu ku tilmaamo in markaasi caqli oo makhluuqkiisaa oo soo koobi karaha uusan jirin qur-aanka ilaahay sidaas ayuu uwen yahay sidaas ayaa hadda waxa weeye faatixadii oo weli markaasi aynu macnaheedu ku dhex jirno oon weli aana maaragtay waxyaaba badan oo macluumaadoo ku jira aanan sheegin ayaa loogaga warramayaa oo waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam weyninkeeda iyo cadamadeeda u warramayaa marka xadiiskaas waxaa weriyey imaamu albukhaari ayaa weriyey oo kitaabkiisa saxiixa ku wariyey faatixada marka waxa weeye fallaa-isheeda way fara badan tahay haddana wax kale ayaa noogugu dhiman hase yeeshee darsigeeni oo markaasi casharkeena tafsiirka qur-aanka oo halkaas ku eg ayaa markaasi kusoo gebangebaynaynaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxa weeye xadiiskaas ay deliishanayaan iyo imaamu maaliki iyo waxa weeye imaamu alawsaaci sidaas ayay deliishanayaan ba layidhi sidaas ayay waxa weeye deliishanayaan ba layidhi o daliilkoodu sidaas ayuu ka yimid a layidhi marka sidaasay leeyihiin basmaladu ka mid maahan sidaasay leeyihiin maaragtay faatixada ka mid maahan iyo markaasi suuradaha kaleentoodba ka mid maahan ay leeyihin qofkana waxa weeye ayaga ragga ka midana waxa weeye faatixada ayay ku furfura jireen ba layidhi qofku waxa weeye imaam ha ahaado ama se kayrkiisa ha aadee weeye marka camalka ahlulmadiina imaamu maaliki agtiisa xujow ka yahay sidaan horuu soo sheegnay taasi waxa weeye waa bacdu alaqwaal weeye oo culummadaas ay qabaan waxaa kaloo la yidhi qowlka labaad uu yahay waxa weeye waa aayad ayaa la yidhi oo faatixada ka mida suurad kastana ka mida ayaa la yidhi sidaas waxaa qaba quraa'u maka ayaa qaba quraa'a maka quraa'deeda ayaa qaba iyo kuufo iyo maaragtay fuqahadooda ayaa qabaa la yidhi waxaa kaloo qabaa la yidhi caalimka la yidhaha ibnulmubaarak ahlu madhabka markaasi afartaana waxaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba isaguna ayaguna waxay deliishanayaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahay idaa qara'tum markaad akrinaysaan alxamdu lilaahi aad akrinaysaan faqra'uu ku akriya bismi illaahi araxmaan raxiim oo markaasi waxa weeye acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
bismi illaahi araxmaan iraxiim waxaynu ku dhex jirnay casharkeeni tafsiirka ahay waxaynu soo bilownay suuraddii qur-aanka ugu horeysay oo suuratu alfaatixa. suuratu alfaatixa marka waxaa weeye wax badan oo macluumaada oo ku jira ayaynu soo qaadanay casharkeena horo. haatanna isla faatixada ayaynu ku dhex jirnaa waxyaabo kaleentood oo macluumaada ayaynu ka qaadanaynaa oo faatixada markaasi waxaa weeye ku tacalluqaaya. bismi illaahi araxmaan iraxiim suuraddatan suuratu alfaatixa la yidhaahdo marka ugu horeysa intaanan macnaheeda aanan u gelin waxa ay suuraddaanu ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaan iraxiim ayay ku bilaabanaysaa. waxaan marka ka waramaynaa suuraddatan marka la bilaabaayo basmaladaas lagu bilaabaayo aqwaal alculamaa'i culamadii islaamka raggii hore oo xaqii saxaabada iyo waxa weeye raggii salafki iyo ahlulmadaahibka waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka qabaan iyo aqwaasha markaasi ka jirta khilaafkeeda ayaynu wax ka soo qaadanaynaa. bismi illaahi araxmaan iraxiim suuraddan hadda marka waxa weeye basmaladatan oo marka la bilaabaayo la leeyahay bismi illaahi araxmaan iraxiim waxa weeye waa la isku khilaafay. basmaladaas waa la isku khilaafay. marka hadda suuraddatan waxa weeye waa 7 aayadood. horta 7 aayadood inay taa la iskuma khilaafsana, laakiin khilaafku waxa uu ka jiraa basmaladu ka mid ma tahay mase ka mid maahan. haddii la yidhahdo basmaladu ka mid maahayna 7bay noqonaysaa. haddii waxa weeye basmaladu waa ka mid la yidhahna 7bay noqonaysaa. ka mid maahan haddii la yidhahna 7 ayay noqonaysaa weye. sidaas ayaa markaasaa la leeyahay. maxaa yeela waxa weeye haddii qolada yidhaahdeen basmaladu ka mid maahan oo aynu sheegi doono waxaa markaasi ay ka bilaabanaysaa aayadda 7aad ayaga agtooda siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin halkaasay ka bilaabanaysaa. marka ihdina siraada almustaqiim meeshaas haddaan wax yar ku celino waxa weeye basmaladu waa ka mid haddii la yidhaahdo aayadda 7aad waa la og yahay waxay ka bilaabanaysaa siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin ayaa hal aayad isku ah. haddii la yidhahdo basmaladu ka mid maahan oo bisimku ka mid maahan faatixadani qolada saas tiri aayadda 7aad waxay uga bilaabanaysaa gayri almaqduubi calayhim wala daaliin intaas uga bilaabanaysaa. waayahay dad waxaa jiroo kaleentoodoo 3aad laakiin aan badnaynin oo waxa weeye waa 8 aayadood yidhaahdeen oo waxay basmaladibay ku dareen. markay basmalada ku dareen ayaa waxa weeye waxay aayad ka tiriyeen gayri almaqduubi calayhim wala daaliina ayay aayad ka tiriyeen. markaasay waxay ka dhigeen waa 8 aayadooday yidhaahdeen. qolana waxay yidhaahdeen waxay ka dhigeen 6ay ka dhigeen oo 4aad oo waxay yidhaahdeen waa 6 aayadood basmaladu laakiin ka mid maahanay yidhaahdeen. labadan qowlaad marka labadan qowlo hadda dambuun sheegayno laba qowloo marjuux oo laga raajix yahay oo waxa daweyn culamada islaamku aynan ka soo qaadin weeye. marka haddaba walaalayaal markaynu soo qaadno suuraddatan waxa weeye khilaafka xagga basmalada ah waxaa la isugu khilaafsan yahay aayad oo faatixada kamida weeye basmaladu ayaa la isku khilaafsan yahay iyo ma ahan weeye. markii hadda saas qolada dhahaya aayad kamida weeye faatixada waanu soo qaadanaynaa aqwaashooda. qolada dhahaya ka mid maahanne waxay qabaan suuradaha kaleentood xataa waxa weeye basmaladu ka mid maahan faatixadana ka mid maaho qur-aanka oo dhanba basmaladu waxa weeye laga tiri maayo aayad laga tiri maayo. wixii ka soo hara markaas suuratu namli maxaa yeele suuratu namli waxaa ugu tegi doonaa inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan iraxiim. basmalada meeshaasu waxa weeye qur-aankay kamid ka yidhahan laakiin inta kaleentoodoo basmalo ah qur-aanka kamid maaha weeye. laakiin waxay leeyihin in lagu bilowdo waa la suneeyaa sida markaa isticaadada oo kaleentood. waxaanu marka ku hormaraynaa dadka yidhaahdeen basmaladu ka mid maahan faatixada suuradaha kaleentoodna ka mid maahan haddii laga reebo suuratu namli midaas ku jirta. hadalkaas marka yaa qaba waxaa qaba maaragtay waxaa qaba quraa'u lmadiina. madiina quraa'dii joogtay oo horo ayaa qabta sidaas weeye iyo quraa'da basro iyo quraa'u shaam ayaa saas qaba iyo fuqahadooda weeye. iyo waxaa qaba imaamka la yidhaha imaamu alawsaaci ayaa qaba. waxaa kaloo qaba imaamu maaliki. marka raggaas waxa weeye maxay deliishanayaan waxa ay deliishanayaan xadiis laga wariyey
أبو بكر يا عمر يا عثمان وأنا أسكلها حديث كاس أنس أيا أسكلها حديث أنس هو هاي وحوي وعن قباشود أن كدو كذي في أبو بكر أن قباشود كدو كذي عمر أن كدو كذي عثمان أن كدو كذي علي أن كدو كذي ما أنا أرق أيضا مركز كفر قرآن فاتحة أيضا بس ملذا كفر قرآن وي وحوي إمام هنغضو غير كيسان غضو كما مقرود أيضا كفر قرآن بسم الله الرحمن الرحيم وي عمل كمركز وحوي أهل المدينة وحوي وعمل حجاه وي عمل كأهل المدينة وحوي عمل كأهل المدينة عمل كأهل المدينة وحوي وحجه وحوي مركز مالكيده إيه وحوي رجانه وحي كدستان حجه كدستان قالوا وحي يراهدين مركز وحوي علماء كمده sidaas ayaa markaasa saxiix yiraahdeen oo waxay saxiix yeeleen basmaladu inaysan faatixada aysan kamid ahayn suuradaha kalena aysan kamid ahayn qoladaas marka sidaas ay qabaan haddii la yiraahdo markaasi kamid weeyane ayadana markaan soo qaadano oo basmaladu waxay kamid tahay faatixada la yiraahdo suuradaha kale intaan u soo noqonaynaahe iyo suurad kasta oo waxa weeye suurad quraanka kamid ah warkaas na waxa qaba faatixadu waxa weeye basmalada ku jirta bisinka ku jiraahu faatixadu kamid yahay iyo suuradaha kale intood waxa qaba iyadana quraa'u maka ayaa qaba maka quraa'deeda iyo markaasi kuufo iyo fuqahadooda ayaa qaba waxa kale oo qaba caalimka weyniye ee la yiraahdo ibn al-mubarak la yiraahdo waxa qaba imaamuna ash-shafi'i ayaa qaba ayaguna daliilkoodu waxa weeye waxa ay daliishanayaan annahu sallallahu alayhi wa sallama qaala inuu yiri xadiis saxiix weeye asaguna ida qara'tum alhamdulillah فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم مركز أخرين إيسان ولا رسولك عليه الصلاة والسلام الحمد لله أصفات هذا أخرين إيسان فاقرأوا أخرين ولا رسولك عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم كو أخرين إنها فاتحة أم القرآن القرآن كويدي سوية وأم الكتاب كتاب كأثر كي سوية وطبع المساني كويدي لسوء العلم أيوية وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها آيات هذا أي كمثال بسم الله الرحمن الرحيم آياتها أي كمثال ساسو رسولك عليه الصلاة والسلام هذا مركز لبدأت وحوي قول آيات علماء الإسلام كثيرات أي مركز أعطيك رقبان ولو البنوة حوي أدلاء أيه هيتتا مركز هذا هدي أنه نعي تذكى صومالي مذهبتي هو مذهبت إمام الشافعي بس مرضو مركز سوى حوي فاتحة إنه وغمتها خلاص كبس مرضو فاتحة إنه كمتها إنه وين هنا وحال كون قرنيسا ومركز فاتحة وحوي بس مرضو فالله إلفا ربنا إسكالله هاي إن مركز سوى كمل إراده قرآن كمركز فيرسه قرآن كمركز بلاوه بسنك اللي بلاوه بسنك اللي ما آية ذايه لكن فاتحة مصحف كمركز سوق قادته ولا آيده آيات أيالك الدقيق فاساسكو أغانيسا ماشاة مركزي أرين آدي وين يكجرته وحوي بس مرضو أي فاتحة أي كمتها الحاصل وحا ليري بس مرضو وحوي إلهي كلام كيسا أي كمتها قطعا وخلاص مجرسها وهذا بسنك وحوي إلهي كلام كيسا إلهي كمجها عد اسكو خلاصنا مجرسوي عد اسكو خلاصنا تعرف مجرسة قدك إنكرا إيرا بس مرضو كلامك إلهي كمدنا عن الجال بونا قنايا جالوغا هذا مركي لإيرادو وآيات أو سورة تستكملها ما تستكمل معا خلاص أيها أستغنى سجرة أئمة تحضور خلاص راسو كلام طولة أيها سجرة إستغنى هو مركي هذا وحوي حدي أو نقصة ونغنه إسلا مركي أسيب بس ماذا أو مركي أسيب حوي فاتحة ما كمتها ما تكمل معا حدي أو نوحي الأسوة لعظمه وحوي وحا أمارة فيها سوق عظمنا حديثة صحيح ابن خزيمة كيساء ولغوري أم سلمة رضي الله عنها وزوجي النبي هذا عليه الصلاة والسلام أم سلمة يحيي كري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسملة أي أخريي في أول الفاتحة فاتحة أول كيس مركا صحيح ابن خزيمة وحا كتها الله حديث كاس أم سلمة لغوري رسولك عليه الصلاة والسلام قرأ بسملة بسم كينه أخريي في أول الفاتحة فاتحة أول كذا في الصلاة أو كأخرية وعدها آية إسلام مركزنا آية أي كتري رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحا دقاي ابن خزيمة أيها دقاي وعلى شيء إنه مركز أي تاي آية أو سورة كستكملة إلا برموياني وأنا أرمتها في الغوري عبد الله بن عباس أو حبر عالم الأمة وعلى شيء
inay markaasi basmaladu ay tahay suuradaha qur-aanka oo dhan aayad kamid ay tahay weeye. cabdullaahi ibni cumar isaguna sidaas ayaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo cabdullaahi ibni zubayrna sidaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo abu hurayrana sidaasaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo cali ibni abi daalibna isna sidaasaa laga wariyey. oo raggaas asxaabta faatixada iskaba daaya ay yidhaahdeen qur-aanka suuradihiisa kale ayaa basmaladu ay kamid tahay. taabiciinta markaasi laga wariyey arrintaasna waxaa kamid ah cadaa ibnu abi rabaxaa kamid ah, daawuus ayaa kamid a, saciid ibnu jubayraa kamid a taabicigii jaliilka ahay, makxuul ayaa kamid a, imaamu zuhri oo muxadis weyne ayaa kamid a. sidaasoo kale waxaa qaba isaguna saan horena u soo marnay ibnu mubaarak ayaa qaba, imaamuna ashaafici ayaa qaba, imaamu axmed ibnu xambal ayaa qaba riwaayadtiisa weeye. isxaaq ibnu raahweye oo waxa weeye mashaayikhda bukhaari kamid a ayaa isaguna sidaas qaba weeye. waxaa qaba abu cubayd alqaasim ibnu salaam ninka la yidhaahdo ayaa isaguna qaba. intaas waxay qabaan inay basmaladu faatixadana ay kamid tahay, suuradaha kalena waxa weye ay kamid tahay, aayad kamid ay tahay weye. marka raggaa saxaabada oo ajilada ah iyo waxa weeye raggaa taabiciinta oo raggi waaweynaayo cilmulxadiiska iyo waxa weeye fiqhiga iyo markaas si loogaga dambeeyey ay yihiin, waxay qabaan basmaladu inay waxa weeye ay tahay aayad oo faatixada kamid a, xataa qur-aanka intiisa kale ay sheegeen. imaamu maaliki waxa uu yidhi iyo abu xaniifa oo raggo ayaguna ahlumadhabka ah iyo asxaabtoodu saa hore usoo sheegnay, laysat aayatan min alfaatixati yidhaahdeen walaa min gayriha min asuwahay dheheen. basmaladu ma ahana yidhaahdeen mid oo kamid a faatixada kamid a ma ahana yidhaahdeen, suuradaha kalentooda qur-aankaana kamid ma ahana yidhaahdeen. saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan xadiis laga wariyey anas horena aan usoo sheegnay, annahu su-ila in laga su-aalay ninka la yidhaahdo anas ibnu maalik oo khaadimka nabiga ahay, can qiraa'ati nabiyi sala allahu alayhi wasalama, nabiga qiradiisa ayaa wax laga weydiiyey. faqaala markaas wuxuu dhahay anas, kaanat qiraa'atu maddan, qirada nabiga alayhi salatu salaam waxay ahayd maday aheyd, waa qiro markaasi la taagtaagaayey oo marka la sugay ahaye. markii sidaas anas uu dhahay, uma qara'a wuxuu akriyey bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akriyey. yamuddu isagoo madaayo taagaaye bismi illaahi taagaaye, wayamuddu arraxmaani isagoo madaaye asoo taagaaye, wayamuddu arraxiimi arraxiimi isagoo taagaaye. waxaa kaloo kaleentoodoo anas laga wariyey xadiisu saxiixayn bukhaari iyo muslim, saa horena u sheegnay. anas wuxuu yidhi sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalama wa abi bakrin wa cumarin wa cusmaan. sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alay wasalama wa abi bakr wa cumara wa cusmaan. waxaan ku dukadow dhahay abubakar gadaashiisa ayaan ku dukaday on salaada ku dukaday. waxaan gadaashiisa ku dukaday sayd cumaraan ku dukaday, sayd cusmaanaan ku dukaday. fa kaanuu yaftatixuuna bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin, waxay ku furfura jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. oo faatixada markay akraayaan alxamdulilah rabbi ay ku bilaabeen o dhah. riwaayad muslimkiisa waxay ahaaday laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiimi ayuu anas ku dira warka, oo waxa weeye bismi illaahi raxmaan raxiim ma aysan dhehaynin fii awali qiraa'atin, qirada awelkeeda weeye, walaa fii aakhiriha xataa aakhirkeedana ma dhehayn. saas ayaa markaas xadiiskaas oo xadiis saxiixayn anas isaguna sidaas ayuu wariyey. culamada islaamku hadda waaweyn sida hadda imaamu bayhaqi oo kaleentood iyo amuuraha kan marka ay ka warramayaan, waxay leeyihiin markaasi dadkan markaasi waxa weeye muxadisiinta gaar ahaan waxa weeye saxaabada markii aqwaashoodan iyo lasoo qaado, waxaa dhici kartay leeyihiin in qaarna waxa weeye basmalada ay maqleen ay nabiga ka wariyeen, qaarna waxa weeye basmalada ayna nabiga ka maqal ee nin walba wixii uu weriye markaasi isaga uu sheegay. laakiin hadda markii waxa weeye arrintaasi la fiiriyo, basmaladu maadaaman ay tahay shay ilaahay agtiisa ku weyn oo haddana shay xirsiya ay tahay, sidaan hadda basmalada xoogaan uga sheegi doono, isla markaasna aan la isku khilaafsanayn ilaahay kalaamkiisa inay kamid tahay, kalaamka ilaahayna ay kamid tahay, waxaa fiican baa layidhi mar walba in markaasi arrimahaas ugu roon tahay in basmalada waxa weeye lasoo qaato. marka hadda basmalada tan markii qolana ay yidhaahdeen kamid maahan faatixada, qolana kamid waay ay yidhaahdeen, salaada jahriyada xukunkeedu see noqonayaa? salaada jahriyada xukunkeeduna wuxuu raacayaa labadaas qowl ayuu raacayaa. raggii yidhaahdeen basmaladu waxa weeye kamid maahan, faatixada kamid maahan, ayagu waxa weeye lama jahraayaan salaada dhexdeeda, hadday salaadu ay jahriye ay tahay lama jahraayaan. marka sidaas ayaana markaasi waxa weeye xadiiska hadda aynu soo qaadanaynay khulafada afartaa saasaa ka sugnaatay ayuu dhahay saxaabiga la yidhaha anas ibnu maalik weeye.
iyo markaasi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu muqafal la yidhaahdo iyo rag kaleentoodoo waxa weeye ayaga markaasi raacsan weeye dawaa'if kaleentoodoo markaasi salafu taabiciin kamidane sidaasay qabaan iyo khalafkaba weeye sidaas waxaa weeye madhabta abu xaniifa iyo sawri iyo imaamu axmed riwaayatiisa ayaa sidaas iyaduna qabta marka sidaasaa waxaa weeye faatixada basmaladeeda markii la yidhaahdo culamada islaamka markaasi sidaas ayaa waxaa weeye ay u kala qaybsan yihiin marka haddaba waxaa weeye dhibaato ma laha arrintaasu ikhtilaafka waxaa weeye ummadda raxmada ku sugan hase yeeshee waxaa loo baahan yahay cibaadadu sideedaba inay meel oo saxiixa ay ku cuskanaato haddii ay ku cuskan tahane inaad wej oo kaliya aad ku socotee hadba inaad dhan u orodo ma fiicna ummadda hadda soomaalida anagu ka mid nahay waxa weeye waxaa markaasi madhab ahaan ay ku socdaan cibaadadooda cibaadada sideeda waxa weeye inay madhab ku dhisan taha loo baahan yahay sida culamada islaamka waaweynaa ijladaha ay qabaan oo qofku markaasi mar hadduu cibaadaysanayo inay cibaadadiisa markaasi meel oo mashraca uu ku jideeyo oo meel uu marsiyaa la doonayaa marka hadda waxaa weeye basmalada waa khayr badan tahay aad iyo aad ayaana markaas waxaa weeye axaadiis iyo asar fara badan oo ku soo arooray ayaa jira waxaa laga wariyey ninka la yidhaha cadaa oo uu ka wariyey saxaabiga la yidhaha jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma waxa u dhahay jaabir markii ay soo degtay bismi illaahi araxmaan iraxiim harabal kaymu waxaa cararay ayuu dhahay saxaabka ayaa cararay oo mashriq ayuu u carayray wa sakanat iriyaax dabayladuna way xasileen wahaaja albaxru badduna way kacday wa asqad ilayha albahaa'imu bahaa-imtuna way u dhega raariciyeen oo dhegaha ayay u raariciyeen wa asqat ilbahaa'imu biiduniha wa rujimat ishayaadiinu shayaadiintana waa la rajmiyey waxalafa allaahu caza wajalla ilaahayna waa dhaartay caza qaalibaha jalla weyna bicizati ayuu ku dhaartay laa yusamaa ismuh ilaahay magiciisa inaan lagu magacaabin calaa saqamin mid jiran ilaa shafaa-ullahu ilahay inuu shaafinaayo walaa yusamaa ismu ilahay isimkiisa inaan lagu magacaabin calaa shayin ilaa baaraka minhu fiihi ilaahay waa barakaynaya waman qara'a bismi illaahi araxmaan raxiimi qofka ahriyane dakhala janata jannada ayuu gelaya sidaasaa marka waxaa weeye basmaladu shay aad iyo aad u weyn tahay marka haddee basmalada in la qaato ayaa aad iyo aad u fiican xadiis laga wariyey abi waa'il oo laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud ayaa wuxuu ahay waa u dhahay rasuulku alayhi salatu wasala maya cabdi ibni mascuudaa dhahay laakiin xadiiska markaas marka dambe waxa uu ka dhigayaa xadiis markaasi waxa weye uu rafcinaayo weye waa u dhahay man araada an yunjiyahu llaahu qofkii doonaya ilaahay inuu ka koriyo min azabaniyati tisc zabaniyada malaa'igta ah oo sagaalka haw dhahay falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi araxmaan raxiim waxaan dhihi lahay meeshaas man araada ruuxii doona dhahay an yunjiyahu llaahu min azabaniyati 19 weeye malaa'igta zabaniyada oo 19 oo ilaahay qur-aanka uu ku dhahay calayha 19 qofkii doonaya in laga koriyo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi araxmaan raxiim fa inahaa 19 xarfan maxaa yeelay bisinkaa wuxuu yahay 19 xaraf waa u dhahay liyajcala allahu tacaala ilaahay inuu uga yeelo likulli xarfin minhaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu uga yeelo xaraf kasta oo kamida jumatan gaashaan ugaga yeelo gaashaan inuu ugaga yeelo min waaxidin minhu mid kasta oo malaa'igtaas zabaaniyadaa kamida loogaga celiyo weeye marka hadda waxaa weeye basmaladu sidaasay maaragtay ahay cajiib ay u tahay mar hadday sidaas tahane in la soo qaataahu waa shay aad iyo aad u wanaagsan mar haddii waxaa weeye kalaamkii ilaahay ay kamid tahay haddana saasay u khayr badan tahay faatixada waxaa weeye basmalada in lagu akriyo ayaa shay aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ah weeye basmalada waxaa weeye waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markiisii hore markuu wax qoraayo bismika allaahuma ayuu dhihi jiray ilaa ay ka soo degto waqaala arkabuu fiiha bismi illaahi majraha wa mursaha markaas ayuu waxau qora nabigu bismi illaahi ayuu qoray markii ay soo degtay qul idcu llaaha aw idcu raxmaana waxau qoray bismi illaahi araxmaani markii ay soo degtay inahu min sulaymaana wa inahu bismi illahi raxmaan raxiimine waxau qoray rasuulka calayhi salatu wasalaam bisinka dhammaantiisa u qoray bisinka dhammaantiisa ayaa markaasuu qoray marka hadda waxaa loo baahan yahay basmaladu sidaas ayay maaragtay u weyn tahay in markaasi basmalada wax weyn la siiya ayaa la doonayaa bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu mahadow dhah ilaahay saabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay alxamdu mahad hadda waxaa weeye faatixadii macnaheedii baanu guud maraynaa alxamdu mahad
saabitun kii sugnaaday weeye waa jumlo khabariya oo loola qastaayo asanaa cala allah ilaahay la faaleeyay subxaanahu wa tacaala alxamdu mahadowdha ilaahay saabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilahi ilahay u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay jini iyo insi iyo malaa'ig iyo dawaab iyo keyrkooda weeye caalamiin hadda marka leeyahay waxaa laysaga idlaaqaa wixii cuqalaa laakiin hadda meeshaan maase wallaha subxaanahu wa tacaala wax allaale wixii ilaahay kasoo hara oo dhan ayaa loola jeedaa cuqalo iyo keyrkooda allihii arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanaayey allihii arraxiimi naxariista khaaskaa naxariisanaayey allah weeye diraxma ilaahigii naxariista u saaxiibka ahay weeye waxaana weeye raxmaddu iraadatu lkhayri liahlihi khayr oo la doono oo ahalkiisa lala doono ayaa la yidhaahdaa allihii arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanaayey almucamimi raxmatahu fi dunyaa cala almuslimiina wa cala alkufaari weeye naxariista ilaahay oo adduunkaana ayay tilmaamaysaa oo raxiimida way kaxeel dheer tahay gaal iyo muslim ayaana wada helaaya maxaa yeele adduunyadatan gaalada iyo muslimiintu raxmadda ilaahay waa wada helaayaan bal waxaaba dhici karaysa inay gaalada ay badsadaan maxaa yeele adduunyada ilahay agtiisa wax qiimaa ka malaha arraxiimina waxaa laga wadaa almukhasifi raxmatahu fi laakhirati cala almuslimiina duuna alkufaari weeye allihii maaliki yowmiddiine abaalmarinta maalinteeda boqorka maaliga ahay allihii maaliki yowmiddiini abaalmarinta maalinteeda maalig ahay weeye yowmuljaza weeye waa yowm alqiyaama weeye dikriga waxa looga khasisaa la yidhi milki oo daahira ma jiraa la yidhi maalintaas weeye oo axad ou iska leeya weye ila allah subxaanahu watacaala weeye maxaa yeele allah wuxuu dhihi doonaa khalaa'iqda liman ilmulku lyawm way milkiga way u sugnaada maanta sidaa la wada leeyahy markaasuu ilahi wuxuu leeyahy lilahi alwaaxid alqahaar ilahayga waaxidulqahaarka ayuu u sugnaaday marka hadda maaliki iyo maliki labada waa la akriyaa laba qiro oo sabciyataynhaa ku sugan marka haddii waxa weeye maalig la yidhaahdo waxaa markaasi maalig waxau noqonayaa waxa uu noqonayaa mid wax milkiye ayuu noqonayaa meligna waxaa la meliki yowmiddiini abaalmarinta maalinteeda boqorka ahay weeye labada qira waxaa xayl dheeraale markaasi meliki ayaa xayl dheeraale oo caamsanaa la yidhi maaligna ka xayl dheeraale maxaa yeele waxaa la yidhahdaa kullu melikin maaligaa la yidhahda mid kastoo boqora maalig waay maxaa yeele ninka boqorka o madaxweynaha maaligna waayo wuxuu iska leeyahay hanti goonihu iska leeyaha jir laakiin mid kastoo maaliga boqor ma ahanaa layidhi walaa cagsa weeye marka hadda waxaa weeye ninka waxaa la yidhi meliga oo boqorkaa amarkiisu maaliga waa kufulahaa layidhi oo markaasi waxa weeye maaliga asaga ayaa ku tasarufaayo maalkiisaba laakiin meliga waxa weeye maaligu amarkiisa kuma fulayaa layidhi culamada qaarkeedna waxay yidhahdeen maalikiya xayleero ziyaadadaas oo binaha oo aliftaa ziyaadada ayaa markaas khayr dheeraada keenaysa kasratu sawaabay marka keenaysaa labadaasaa la yidhahda laakiin labada qiro melikida ayaa sii xayl dheer weeye iyaaka adigaa nacbudu ka caabudaynaa hawdha ilaahay iyaaka adiga ayaa nacbudu meeshaa horay waxaa ku qadareeday quulu dhaha alxamdu lilaah oo intaanoo dhan oo suwadan inay maquulu qowl ay noqoto alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina dhaha arraxmaani iraxiimi dhaha maaliki yowmiddiini dhaha iyaaka adiga ayaan allow nacbudu ka caabudaynaa wa iyaaka adiga ayaa nastaciinu kaasaan weydiinaynaa iyaaka nakusuka bilcibaadati cibaada ilahi ayaan kuu gaar yeelaynaa weye tawxiid iyo qayrkiis oo ilahay daacadiisa waxaana kaa dalbaynaa macuuno inaad noo kaalmayso ayaanu kaa dalbaynaa cibaadada iyo qayrkeeda aad noogu kaalmayso sidaas markii ilaahay subxaana watacaala sifo laa'iqa loo soo sheegay haddana waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala addoonku isu dileeyey oo alla subxaana watacaala uu hoos tegey waxaa ilaahay uu weydiisanayaa ducaduna markaa mustajaabo ay noqonaysaa sida tan oo alla wuxuu yidhi waxaad tidhahdeen haddane ihdinaa na hanuuni assiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay ihdinaa allow nagu hanuuni assiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay ka bedel siraada aladiina kuwii dariiqoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda siraada aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda ood hidaayadu nimcaysay waa kuwa ilahi yidhi subxaana watacaala faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiica kuwa ilahi yidhi wey subxaana watacaala kuwaasoo kayrilmaqluubi calayhim korkooda kuwa loo carooday qayrkooda ahay kuwa loo carooday yahuud weeye nabigu soo sheegay walalaaliina walaa kayralaaliina kuwa lumay oo baadiyooday qayrkoodan ah weeye waxaa weeye kuwa markaasi lumay nasaaro weeye cibaado la-aan waxay iska cibaadayseen ayagoo juhaalo ah weeye marka hadda waxaa weeye ilaahay wuxuu dhahay kuwaasoo kayrilmaqluubi calayhim korkooda kuwa loo carooday qayrkooda ah maqluubu calayhim alyahuud ou dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam kuwa loo carooday yahuud weeye walaaliin laaliintuna waxaa weeye annasaara weeye nasaara iyagoo markaasi
kutubtoodii taxriifeen waxba aanan haysanin ay jaahilnimo ku cibaadaysteen nimankan yahuuddaane ayagoo cilmi leh ayay kitaabkoodii ka tageen markaasaa ilaahay caradiisa ay ku dhacday cara ilahi waa ku dhacday sa hadda insha allahu tacaala marna waanu ku tegi doono marka hadda faatixada marka la dhameeyo waxaa la yidhahdaa aamiin ayaa la yidhaahdaa aamiintaa marka lafdiga aamiin faatixada kamid maahan qur-aankana kamid maahan khilaaf kuma jiro asaga yeeshee in lala yimaado oo qofka qaari faatixada akrinaayo inuu la yimaado asagoo ka faslinaayo sagta la dhiifaa asagoo ka faslinaayo faatixada si loo kala sooco wixii qur-aana oo loogaga sooco waxaan qur-aan ahayn ayaa loo baahan yahay marka hadda waxaa weeye waa ismu ficil sida saxiixa weeye bimacnaa istajib wey ilaahu ajiib oo markaasi fatxa lagu baneeyo waxaa banaan baa la yidhi markaasi madulhamsatiya hamse aamiin la yidhahdo iyo in la qabto waa amiin la yidhahdo aamiin la yidhaahdo waxaa kaloo waa ismu min asmaa illahi tacaala taqdiirkuna yaa aamiin waayaa layidhi marka hadda axaadiis soo aroorta waa jirtaa oo waxau dhahay nabigu ilaahay umadeyda wuxuu siiyey 3 ouna siinin qablahum ayaga hortooda axad kale uusan siinin salaamta iyo markaa oo ah markaa taxiyatu ahliljanna sufuufta malaa'igta iyo aamiinta weeye ilaa maa kaana min muusa wa haaruun wixii ka aada mooyaane taas waxaa weeye muuse wuxuu habaara fircoon nabi haaruuna waa ka aaminiyey markaasaa ilaahay wuxuu dhahay subxana watala qad ujiiba dacwatukumaa marka labadaas waxaa laga soo qaadaya inay duco ay wada ahaayeene hadda aamiinta waxaa weeye ummatu maxamed ay khaas ku tahay baa layidhi waana shay aad iyo aad u muhiima oo markaasi cajiiba weeye oo wax badan ayaa markaasaa ku suganoo ducada dhan oo lasoo akrinaayey ayay shaabad u tahay haddana waxaa la sheegay darajo oo jannada ku sugan inay tahay marka waxaa weeye waa 4 xarafaa la yidhi aamiintu weeye ilaahayna wuxuu ka abuurayaa mid kasta malag oo ka abuurahaa layidhi oo dhahayo allahuma kfir likulli man qaala aamiin ilaahay qofku aamiin yidhi dembigiisa dhaaf u dhahayo marka aamiintane sidaas ayay faatixada muhiim ugu tahay marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu